aqoon isweydaarsigan oo socon doona muddo 2 maalmood ayaa waxaa ka qayb galaya 25 xubnood oo ka kala socda maxkamadaha golaha wakiilada golaha guurtida iyo xubno ka socda gudiyada xuquuqda aadamaha u dooda waxa kale oo aqoon isweydaarsigani ka soo qayb galay khubaro caalamiya ugu horeyn waxaa kulankan furay gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland isla markaana ah gudoomiyaha guddiga cadaaladda Professor Adam Xaaji Cali waxaana hadaladiisa kamid ahaa waxaan doonaynaa inaan focus ka saarno 5 sano soo socota sidoo uu noqon lahaa body shaqeeya oo shaqaal hoosaadkiisa leh minute-kii leh filing system-kii leh magaranaysa xafiisyadiisii leh dadna taasi markaa waxay u baahanaysaa in capacity building la siiyo marka maanta waxaynu isugu nimid wax kale isugu maynuman inaynu qorshayno strategy aynu wadada u raaci lahayn oo aynu dib u review gareyno maxaa guddiga cadaaladda aynu ka haynaa code of conduct-gooda waxay qabanayaan dabadeedna aynu review gareyno waayo eeg reformku wuxuu buu ka iman karaa institutionska jiro la xoojiyo waxa kale oo aan doonaynaa aan idinku bishaareyna berigi dhaweyd anagoo wada jirno wasiirka cadaaladda iyo xeeraryaha budgetkii aynu ku dagaalanay guddiga cadaaladda waa la kordhiyey gunadeeda la kordhiyey kharash hawleedkeeda sanadka waxbaa hirgalay laakiin waxaynu doonaynaa 5 sano soo socota in sanad walba wax la kordhiyo oo imika buildingka cusub ee maxay ahaydey maxkamadda dastuuriga maxkamadda sare ka socda markay xafiisyada badankoodu guuraan haddaba waxaan doonaynaa in xafiisyadoodii la establish gareeyo oo ay si fiican halkaa uga shaqeeyaan wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka Soomaaliland Axmed Faarax Cadare oo isna halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyay kulankan waxaanu yiri wasaaradaha waxay madax bannaan yihiin howlmaalmeedkeeda iyo fulintoodii mashaariicda ugu gaar laakiin markay xeer noqoto waa in bahda cadaaladdu iyo hay'adaha madax bannaan cadaaladda ay ku soo ururaan habayntii sharciyeed dejinteedii si ay u noqono qaran jira xeeraryaha guud ee qaranka Soomaaliland Xasan Axmed ayaa isaguna kulanka ka hadlay waxaana hadaladiisa kamid ahaa bal horumarka iyo developmentka ama loogu talagalay guddiga cadaaladda oo halkan developmentka sida ka muuqata warqadda lifaaqa hawlo badan la gali doono oo muhiim ah oo aan u arkayo inay yihiin kuwa sare u qaadaya guddiga cadaaladda hawlaheega shaqadeeda sida u shaqeynayso waana soo dhaweynaynaa dowladda Ingiriisku tababarkan ay noo fadisay oo kii ugu horeeyay runtii oo guddiga cadaaladda loo qabto waan soo dhaweynaynaa waxaan leenahay welcome haweeney ka socotay hay'ad caalami ah oo dhinaca shuruucda iyo xeerarka ah oo magaceeda lagu magacaabo Cowan Fantasy ayaa iyaduna halkaasi ka hadashay waxaana hadaladeeda kamid ahaa and I spent that time advising the United Kingdom Attorney General and the Director of Public Prosecutions and government ministers on prosecution policy and rule of law issues.